السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أمديق maxay ahayd maanta wax yar oo wacyigelin ah aan rabay inaan isla socodsiino maxay ahayd fikrado iyo waxyaabahaas iyo inaan isweedaarsanana waa u baahanahay in oo maxay ahayd kumentiyada iyo maxay ahayd qof walba wuxuu talo iyo tusaalaha ay isweedaarsanaa u baahanahay maxay ahayd ilmaha waad aragtaan iskuulaadkii borobalena ka jiro oo xanuunkana maxay ahayd adduunkii oo idil saameeyay inta badan ilmaha guryahay wax ku bartaan taleefano iyo maxay ahayd electronic ee isticmaalayeen culeysna waa jiraa oo maxay ahayd ilmihiin culeys ay qabaan waalidiintiina maxay ahayd culeys ay qabaan sababtoo maxay ahayd ilmaha marka iskuulka aadayo wuxuu dareemayaa in oo hawo helo in oo maxay ahayd bulsho oo maxay ahayd social oo yahay oo maxay ahayd nafis iyo banaanka markaad joogtid iyo markaad guri ku jirtid isma lahan ilaa maxay ahayd guri aad ka bixeenin faa'iido ma lahan waxaad dareemaysaa qofkii maskaxda inay oo xirxirin yahay camal oo dareemaa marka alxamdulillah xanuunkan ilaahay naga dul qaado bad laakiin inaa waalidiin haddaan nahay hooyo iyo aababo aan ka fikirno waaye ilmaheena aan la soconno oo attention u lahaano waa la shaqeynaa inta badan dadka maxay ahayd qaaradahan iyo joogo laakiin waa in adana ilmaha taleefan ilmihii oo wax ku baranayo mar walba adoo ilaalinaysa hadana maxay ahayd ma sii ilaali kartid attention kale oo aad u sii badan u baahan tahay laakiin inaan dadaalno u baahan aan maxay ahayd anoo fiican aan dadaalno si ilmaheena maxay ahayd meelo aan rabin iyo waxyaabo u wanaagsaneen iyo anagana u wanaagsaneen aysan ula xiriirinay sameynin Instagram iyo maxay ahayd maxay ahayd Facebook iyo waxyaabahaas hadda dadkii u bateen ku qafiifeen ilmihiina saameyn maxay ahayd ku leeyihiin hala kontrolo ilmaha maxay ahayd hadayba waxyaabahaas isticmaalaan waalid kasta ha ku dadaalo sida oo ilmihiisa ula saaxiibi lahaay oo fareen ula noqon lahaay oo maxay ahayd social mediaas ilmaha loogu suuliyo oo maxay ahayd inta oo wax baranayo na ilmihi loo fasaxo wax oo markuu cayaarayna inta oo maxay ahayd cayaarayo wax aad la ogtahay oo cadadan ay noqoto oo ilaa maanta ay noqonin continue oo ilmihii waxbarashadiisii habsaan ku keenayso oo adigana aad leedahay ilmaha wax ii baranaya aadna war ka heenin oo waxyaabo kale iyo dad aad shaqo ku lahaynoobo maxay ahayd aad aqoonin oo intoo iskala xiriiro waxaad adiga u sheegaysidba ooba shaqo ku lahayn oo meel kale inta oo wax looga soo shubay ee noqon kartaa waxyaabo noocaas xataa wallahi waa jiraan maxay ahayd marka ilmaheena attention aan lahaano intay maxay ahayd oo wax walba qabasho markuu leeyahay oo maxay ahayd bilow yahay ee qabasho leedahay hawsha markay faraha ka baxdo waxba kama qaban kartid marka maxay ahayd aan talo iyo tusaalooyin u baahanahay maxay ahayd aniga kulleeyba intaas maxay ahayd waxyaabahaas aan arkay oo walwalna igu haayo oo maxay ahayd dad badan maxay culeyskaas waa jiraa marka walaalayaal isla socono oo isla wadaagno oo waxa wanaagsan iyo maxay ahayd aan ku dadaalno waxa xun inaan iska reebno ilmaheena waa inaan attention u lahaano waa inaan maxay ahayd fareen la noqono waa inaan maxay ahayd maadaama guriga lagu xiran yahay wax yar banaanka aan u bixino markay qorax jirto wax yar soo nafisaan oo la soo socodsiiyo markay bareegeer iyo wax ay leeyihiin axad iyo sabdigo kaleenta weekend maxay ahayd kadibna aan kontroolkeena habato culeys asagoo oo lagu saareynin ilmihii oo pressure aan lagu saareynin si tartiib ilmaha inaa fareen ula noqotid oo waxyaabahaas aad ka reebtid oo ku yaraado intoo wax baranayana aad mar walba ishaada ee la jirto markii waxbarashada timekeeda laga baxane oo ilmihii wixii ay haystaan oo maxay ahayd aad ku balantaan oo ka qaadaan waay aan ka qaadno oo markaas maxay ahayd xilliga oo cayaarayeen xilli cadadan oo isku ogtihiin ay noqoto laakiin taleefankiisa iyo waxyaabihiisa aad la socotid ilmahaadii adaa mas'uulka ah maxay ahayd wadamadan aan ku noolnahay sida ilmahaayna ay yihiin ilmahoos ay yihiin different waaye
ilmahooda waxa waaye waalidka asagaa mas-uulka ah waxa waalidka ogoleen lagama sameeyo guriga anaga laakiin Soomaali haddaan nahay maxay ahaydee ilmihii waxaa maxay maskaxda noogu jirto free waaye freegana saas ma aha noocaas ma noqonayo ilmahaada adaa mas-uulka ah waxa xun in maxay ahaydee si wanaagsan ilmahaada xiriir aad u leedihiin oo maxay ahaydee aad ka reebtid oo waxa xunne aad ka reebtid waxa wanaagsanna aad la socotid oo iyadoo qayli iyo buuq ayna ahayn ilmahaadii aad maxay ahayd attention u lahaatidaa wanaagsan oo ka reebtid Instagram-kan iyo maxay ahayd Facebook iyo waxyaabahaas hadeene kulli inta badan waxaa loo isticmaalaa in iskuulka qadad kaleento oo waxaas aan ku saabsaneen marka ilmaheena attention aan u lahaano aan ogaano aan la socono ilmaha markay waxaas ay helaan hadda waxa waaye dan weyn ay u arkaan oo waxay ishaad boo fiirinaya waxyaabahaas oo isticmaalaya kadibna waxaa lagu soo istaagayaa ma ahan waa maxay ahayd inkirmaad aan soo istaagaya marka bal aan culayska saarno ilaahayna waxaan ka baryeena caafimaad ilaahay inuu maxay ahayd adduunka idinku soo rogo ilaahay caafimaadna siiyo maxay ahayd ilmaheena iyo ilmaha maxay ahayd ilmaheena kulli ilaahay inuu noo wada badbaadiyo meel kasta aan joognaba ilaahay inuu maxay ahayd wanaag iyo akhlaaq iyo diinteena iyo wanaag oo ilaahay oo noogu hago ilaahay weydiisanaynaa maxay ahayd ducadana aan badsano isku duceeno ilmahaada iyo ilmaha kaleentaba maxay ahayd waa isku mid waaye ilmahaas kaleenta haddoo maxay ahayd maanta oo xumaado ama wax qaldan oo sameeyo adigana inay ku qabso doonto ma ogid marka ducada aan badsano ilmaha walba maxay ahayd ilmahana aan u wada duceysano aanay attention lahaano intaasaa maxay ahayd maanta aan usoo galay marka aan isla soo xiriirno insha Allah maxay ahayd YouTube-keygana waa cusub yahay marka wacyigelin iyo wanaag iyo wixii maxay ahayd talaha iyo tusaale aan isla socodsiino insha Allah intaas hadalkeyga uu badan yahay hadal badan oo macno lahayn wax ma taraayo insha Allah intaas maxay idin la qaybsanayay maxay ahayd subscribe-ka iyo share-ta iyo like-gana insha Allah xaqiina waaye waa cusub yahay YouTube-keyga maxay ahayd waxaana rabaa wax yar oo wanaagsan leh inaa maxay ahayd aan wax noo taraayo faa'iido inaa iskala socono insha Allah markay ay maxay ahayd ku qanacsan tihiin hadalladan oo kaleente oo xanuun kugu hayo ama oo maxay ahayd oo u aragtid inay dan noo wada tahay insha Allah saa ila socotid subscribe iyo share iyo like iyo saar waana isla soconeynaa walaalahayga wanaagan oo balan ilaahay khayr iyo barwaaqo iyo baraaraan ka rajayneynaa cafis iyo masaabax assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh